السلام عليكم ورديدين وإذن سلامي وينوي عشر قلي عفر كان أنا مانت موضوعي سوحوي هاي يومن بودي باتس وعفرك تضباطا إيوه لحد lesson 76 and examples of sentences using different tenses. حدنا هجركا آذنها نصدر دونا وانا قبتي سكوات وركو تسالوين أين وطان حبنهان حقن كستور حدنا يرأينا برننا قبت كوات تسالوين ما أين وطان تسالوين كاسنا وقتي دوان قل دوان أيان كريهنا سيدا وقتي قل جيوبه وقتي قل السؤال في يفتي الصوص سعدو إن شاء الله حرجينا إنها حبضا كبر ندون تيت تسالها نكوات وحدنها و face وجي face وجي اسكو داي ازيانا انا ديجا دول بدهديت face ادا تربتيت كسر عيشو وجي اتسالها او جملة دا استعنان لي و past tense حالذو وغا وقتي هوري past tense سالها جملة دينا وحاواي my face was red my face was red وجهي مو بدودنا وجهي مو بدودنا ووقتي هوري وحاد كهان ليسا وجهي هذا قدود كيسا ان خبن hearing tenor هي head face was نا ووقتي هوري مركا وركتات سرانها مركا داد قنال سبسكرايب ساروس للعشرة مر والبو هشيد إن شاء الله إن تسالها نكرهبا وولي إن وجد حذين توجيا يعني كوي كرنا ولي present tense وقت حال دركا أم وقت هاد اللي جيوبو أو my face is red وجدي ذا وقدود my face is red وجهيga وقدود مركا قاك تكوشكت أو تسالاه و future tense ووقتي أو هذا المستقبل كسو سعدو my face will be red my face will be red وجهيدا وبدودناني دونا ووقتي هذا سو سعدو my face will be red حلوين تايم حكتوا head مدح head مدح سو دايمر والبو إناد إيغسل ديفيد إليسيت كويل إليسيت تسالهنا أو جملة دوا past tense ووقت هوري ركا my head was bleeding مدحيغا ودي وديك بحايي اسكو داي وقت يدا إنها تسفع عنو كالفيرسيت إيسيدا أو استعمالناي مركا تسالا حلقو أو جملة دا ولينا خبين تمضحا يعني استعمالنا و present tense ووقتك هاد اللي ديوغو my head is bleeding مدحيغا وديغيا future tense وانك مستقبلك وقتك مستقبلك my head will be bleeding مدحيغو وبيجي دونا مدحيغو وبيت دهدونا سكوداي إناد مساكا لبخسيت وقتي هذا future present يدمان هبنتين حكتوا I هل مركي إبادين هنا وآيس تسالها الجملة دينا أنكو قبلا وينا وقت هوري أو تقديف my eye was itchy الشيء ده ويرني سي إيش
My eye was itchy. waa waqti hore past tense. waqti hore ama tegey. tusaalaheena jumladda xigta waa present tense. waqti xaadirka ah ama waqtiga hadda la joogo. My eye is itchy. My eye is itchy. ishaydu way cuncunaysaa. is waa waqti xaadirka ah ayay tusinaysaa. ayna waa xibinteena ayay ahaydna. mayna tiida ayaa laga wadaa. marka tusaalooyin fara badan ayaan isticmaalaynaa. mayda ayaan isticmaalaynaa sida my eye will be itchy. My eye will be itchy. Future tense waa waqtiga oo hadda soo socdo mustaqbalka. ishaydu way cuncuni doontaa. ishaydu way cuncuni doontaa. tusaalaheena xibinta xigta waa nose. nose sun. nose sun. inaad ku soo celisid isku day. aad dhahdid nose. waad ku soo ceslan kartaa mar walba videoga. tusaalaheena jimada aan isticmaalayna waa past tense. past tense ayaan ka bilaabeynaa waqti hore ama waqti tagay. My nose was broken. My nose was broken. sankeygu wuu jabnaa. sankeygu wuu jabnaa. tusaalaheena jumladda xigto waxaan isticmaalaynaa waqti xaadirka ah ama present tense. My nose is broken. My nose is broken. sankeygu wuu jaban yahay. sankeygu wuu jaban yahay. waqti hadda la joogo oon hadlayno ayaa laga wadaa. is ayaana isticmaalaynaa. future tense. future tense waqtiga mustaqbalka ah aan waqtiga wixii hadda ka dambe dhici doono. My nose will be broken. My nose will be broken. sankeygu wuu jabi doonaa. sankeygu wuu jabi doonaa. waa wax hadda kadib dhici doono ayaad ka hadlaysaa. future ayaan biliibaha mustaqbalka. future tense. mouth af. mouth af. xubinteena egto ayaa mouth af. tusaalaheena jumladda waa waxaan isticmaali doonaa waqti hore ama waqtigii tegey. past tense. My mouth was sore. My mouth was sore. afkaygu wuu xanuunsanaa. afkaygu wuu xanuunsanaa. My mouth waa afkaygu was sore. wuu xanuunsanaa. present tense. waqtiga xaadirka ah ama waqtiga hadda la joogo ayaa laga wadaa. My mouth is sore. My mouth is sore. afkaygu wuu xanuunayaa. afkaygu wuu xanuunayaa. waqtiga hadda la joogo oo hadlayna ayaa laga wadaa. is ayaan isticmaalaynaa. soona xanuun ayaa laga wadaa. qaybta xigto waa future tense. waqtiga mustaqbalka ama waqtiga soo socdo. My nose will be broken. My nose will be broken. sorry, my mouth ayaa laga rabay balse nose ayadana waa jumlad kale. My nose will be broken. sankeygu wuu jabi doonaa. sankeygu wuu jabi doonaa. haddaad rabtid luqad intaad baratid waa mar walba inaad ku soo celcelisid. macalinka edaba celcelisid ayaa loogu baahan yahay. tusaalaheena xigta xubinta waa ear. ear. that ear. big. ear. did.
tusaalaheena xigto oo waqtiga waa past tense. Past tense waa waqti hore. Tusaale jumladeedkeedana waa my eye had it. My ear, sorry. My ear. Meeshaas inta ay iga saxwiinay leavin rabaa. My ear had it. dhegtaydu way maqashay. dhegtaydu way maqashay. tusaalaheena xigto weli waa past tense. past tense-kaas oo ah it was heard by my ear. it was heard by my ear. dhegtayda da ayaa maqashay. dhegtayda ayaa maqashay. adiga naftirkaada labada jumladood markaas ku fiirisid tan iyo tii hore isku mid miyaa masax maxaa u kala duwan yihiin inoo sheeg. mida kale su-aal yar ayaan idin siiyey. su-aasha waa it was hard by my ear. it was hard by my ear. dhegtayda ayaa maqashay waqtigee waaray inoo sheeg. marta maxaa xiga adiga maxaa jeclaan lahayd inoo sheeg. aniga waxaan jeclaan lahay cashirtan ayaan jeclaan lahay part 2 ayaan sii wadanaynaa. human body parts xubnaha jirta aadanaha ayaan weli wadanaynaa. waana mahadsan tahay ilaa tahamkan haddaad soo baartay fadlan subscribe saaro.